السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذا غالية بعدين سلام يا إيش هرب الشو كحرن أنت هذا كدب كحرن عندهم طبعا بإذن الله كريم سود وهذا هدي أتشانل كوك عصبت هاي فضلا سبسكرايب كسارو سي آد نور سعوتيت وربحنا ذنا معنو والبا إن شاء الله سيدا آن كوسو قبنا وركا ودن بيي مركز آد وحيسها بدل رمضان كريم لما مروا بجوكتان إلهي سبحانه وتعالى هنجي أجرسي لما أنتن حسنات إيه غيرنا إلهي هنجو بدلو سيدو كلا أنت حنوصل إلهي هنوع عافيو أنت عافمات قبتنا لما أنتن إلهي هنوسي ديو مقفة وإلهي وقفينا مركا إلهي لما أنتن هنما سامحو أغرئية الدنبا وركي مانتي ودن بيي oo raba halkan kaga soo tabiyo waxa weeye koow tacsi insha Allah aan halkan rabo ummadda Soomaaliyeed inaan la qaybsado bahda diblomaasiyiinta Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa hadda joogaba meel walba ay ku nool yihiin adduunka kuwa shaqeynaya kuwa aan shaqeynayn ee howlgab ahba inaan la qaybsado tacsi gaaran oo diro ehelkii iyo qaraabadii ka geeriyooday ambassadorkii muddada dheer Soomaaliya u fadhiyay wadanka مصر عاصمة القاهرة إسلام كان أها سفير كي جامعة عربتها يجوكتها أها الصومالية وكجريودي ساكي وبيشو أيتهاي طبعا بيشو شرات ماي لابد يكون إيه لباتنكا وضكاسي مصر نحرس جنة الله كورابيو أمباشاتور عبد الغني محمود وعيس أمباشاتور الله ونحرسته عبد الغني محمود وعيس مدبدا بكشغيني هالكاسي مدبدا أيو مثلي صوماليا مصر يا جامعة عربت وهو هولكر إذا بدن أغلاق بدن سرت وطن كإيلالية آدي دبلوماسية درة وسجيته أيوها وحالنا هاي قوس كيسي حاس كيسي المهيسي إهلديسي ولاليهيس dadkii aadka isugu dhawaayeen ee saaxiibada ahaayeen ee waayay dhammaan samriga iimaan Allah idinka siiyo annaga oo dhan Soomaalina Allah naga siiyo maadaama uu ahaa nin u soo shaqeynayay qaranka ee danihiisa gaarka ah amar walba ku mashquulsanayn wuxuu ahaa aqoonyahan Soomaaliyeed oo dawladihii hore ee Soomaaliya jagooyin badan ka soo qabtay diblomaasiyadda ka soo shaqeeyay konsuliyada badan ka soo shaqeeyay oo ka tirsan Carabta Pakistan إنديا يمال بدن مركا كاسي تعزاس بمانت رمنا ومضى إن اللو دقنا وأنا قيب سنة غضبك لبات وحوية حلي بانشيسو وما تسي أدك وإيديي مدحوينها مامور قبلاتك هيرشابيلا من مدن واره ولقوا إيديي إنه لوصدي لعكتي بحركة بلدوينة تريان ووتر قلين وشم مليون أو دولار جاريسة لعك تاس كتمت إنه كلا برقاتي إلا هذا اللي لاقيه العك تاس أسوق له هايستو بقول كون أو دولار ودولة فدرال كاي سوماليا أساس هالكاسي سيدو كرنا والعك تارلون صدي واري هذا حساني هميس كقلينك تاسو أنا ولد جيدو حلبانا دي بكا كياني موشن كنا مردو بالقاضية maadaama amiin jeesona uu xubin weyn ka yahay maamulka nabad iyo nolol oo aan hayn xildhibaan kaliya laakiin uu yahay qabqablayaasha aadka u weyn ee aad ula dhacsan aadna ula jilbaysan hoggaanka farmaajo halkaas waxay cadeynaysaa waare inuu tagayo oo ay ka shakiyeen nabad iyo nolol oo aad ugu shakiyeen in uu berrito doorashada imaan doonta waare nin la aamini kara ahayn ee uu ku roogi karo saxanka dhinaca kale ama kaarka dhinaca kale uu ugu roogi karo nabad iyo nolol Mustafa Farmaajo iyo khayre sidoo kale warar kale waxaa ka mid ah xoog in pressure ama xoog weyn lagu saarayo qorqor doorashada soo socota asaguna inuu ku rogo nabad iyo nolol halkaas oo ay fiqi wasiirka noqday iyo mahad salaad ee lagu weyn ku yeesheen
shaki weyn waa jira oo laleeyahay khayre ayaa raba meesha inuu kala wareego farmaajo doorashada soo socota ee farmaajo lama uu rabo khayre in uu farmaajo is soo sharaxo qalabkaasina hore uga soo hadalnay wuuna soo bixi doonaa haddii ilaahay idmo wararka kala dibadda waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka obama oo aada u dhaleeceeyey qaabka uu madaxweyne trump ula tacaalay ka hortegidda iyo xakamaynta cudurka coronavirus ee dalkaasi maraykanka ay ku dhinteen dad gaaray dad ku dhow 70,000 oo qof Mr. Obama oo war-saxaafadeedkan soo saaray wuxuu sheegay in arrintaasi ay ka dhigan tahay sida asagoo hadalka u yiri maxaa iga galay oo kale waxa la yiraahdo maxaa iga galay uu ula dhaqmay shacabkii iyo dadweynihii maraykanka asagoo xakamin karay wax badan ka qaban karay ka hor inta uusan cudurku safmar ballaaran ugu bilaabin gobolka New York una sii gudbin gobolada Oregon, Michigan, Omaha, Nebraska iyo California wuxuu yiri marka arrintaas taxadar baa laga qaban karay laakiin siyaasaddaasi wuu ku fashilmay dadka laakiin arrimaha siyaasadda maraykanka oo darasaa waxay leeyihiin arrintaani waa ololaha doorashada ayay ku leedahay maadaama nin miisaan weyn ku leh oo waddanka madax ka soo noqday uu yahay Mr. President Obama saaxiibada qaaliga ah haddii aad shaarib bashow ku xiran tahay waa janaal aad iyo aad casri u ah sii koraya warbixinada ugu dambeeya ee update-kana soo gudbiya fadlan maalin walba ama toddobaad walba waxaad nagala soconaysaa haddii ilaahay idmo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaaliyaba iyo wixii degdeg u soo kordhaba si aad u heshid wararka degdega ah ee dhacaya saacadda ka dambaysa insha Allah ama maalinta ka dambaysa fadlan channelka subscribe saaro si share gare iyo like taba waa mahadsantihiin waa shaaribo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti dambe oo wanaagsan asxaabtayda qaaliga ah